Naresh Kumar oo ku nool Muzaffarnagar ee dalka Hindiya waxa uu sheegtaa inuu haysto hadiyad gooni u ah kaliya ma ahan inuu korontada la falgeli karo, waxa uu sidoo kale tamartiisa gudaha ku dhalin karaa danab. Sidaasi awgeed uma baahna cunno joogto ah si uu ugu noolaado. 42 jirkan Naresh waxa uu sheegay inuu awoodani khayrul caadiga ah si kadis ah u dahrogay. Waxaa kama ku taabatay fiilo koronto laakiin waxba ma gaarin. Dadka intooda badan waxa ay alle kaga mahadceliyaan sida ay uga badbaadaan shilalkani oo kale. Waxa ayna ku talagalaan inay aad uga foojignaadaan mar dambe. Laakiin maya Naresh taas beddelkeed waxa uu go'aansaday inuu sahamiyo awoodda xad-dhaafka ah ee ku kaydsan isaga oo fiilo kasta la falgelaya ilaa markii dambe uu ogaaday inuu danabta ama korontada kaga maarmi karo cuntada la cuno. Markasta oo aan gaajo dareemo gurigana aysan oolin wax la cuno, waxaan muddo saacad iyo bar qabsadaa fiilo qaawan waana ka dhargaa. Waxaan korontada u cunaa sida cuntada. Naresh Kumar ayaa u sheegay Cover Asia Press. Waxaan taaban karaa aalad walba oo danab ah sida qasaalada, firinjiyeerka, marwaaxadaha iyo wixii soo raaci kara. Waxa ay korontadu sare u dhigtaa heerkayga tamarta daaqada igu jirta. Waxa ayna ila tahay 80% inaan hadda wada koronto noqday. Waan ogahay waxaan ahay qof gaaroodi ah, qof kastana sidan ma samayn karo. Kumar ayaa u sheegay wariyeyaasha. Afadaydu ilama yaabana, laakiin dadka kale way iga argagaxaan. Wuuna ku saxan yahay midaasi waayo muuqaal video ah ayaa muujiyay isaga oo gacmaha iyo afkaba ku haysta fiilooyin koronto iyo aalado danab leh.